بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaas Ismaaciil, mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com. Luqadda Ingiriiska ama English language oo aad u xiiso badan, arday aad u fara badan waxyaabo badan ay ka barteen. Learn English grammar vocabulary through pictures. Waa baro naxwaha Ingiriiska, eray bixinta adigoo isticmaalaya sawir. Marka waa muhiim sawirka iyo codka waa muhiim sababtoo ah ardayga ama shakhsiga baranaya luqad noocay ahaataba qaasatan Englishka wuxuu u baahan yahay ku dhawaaqida iyo sawirka in isku meel ay joogaan si uu ogaado waxyaabaha uu baranayo. Marka waxaan ku baran doonaa casharkan muhiimka ah oo casharaad taxana ah sidii aan isugu keeni lahayn ku dhawaaqida isla markaana aan warki lahayn sawirada. sida caadada ah haddii aad member ka tahay halkan ayuu yaalaa casharka mar walba English iyo tutorial halkan ee saan u furaysaa waxyaabo badan ayaa ku jira beginning part 1 part 2 English test elementary iminka casharka waa kan learn English vocabulary through pictures ama sawirada marka animals appliances astronomy bathroom birds birthday buildings camera camping iyo city. marka haddii xayawaanaadka aan ka bilaabo animals lesson 1 casharadu waa ay kala duwan yihiin waa different lessons ama lessono kala duwan ama casharo kala duwan. haddii kan saan u furo waxaan ku arkayaa sawirada iyo ereyada iyo ku dhawaaqida kan pronunciationka waa qaabka lagu dhawaaqo. tusaale ahaan shimbirtan la yidhahdo albatros haddii aan riixo albatros ayuu ii sheegayaa albatros ayuu leeyahay. kanna waa yaxaaska alligator. marka dhawaaqa waxaad ku garanaysaa isla markii tabcan waa in aad headphone ka dhagaha la gashto uu ku yaala si aad u dhageysatid. marka waxaan eegaynaa iminka kan anaconda ayuu leeyahay kan ant marka maska antelope ape. marka ardayga luqadda Soomaaliga ku hadlaya ee doonaya inuu barto Ingiriis waxaa mar walba muhiima ereygan halkan yaala luqadda Ingiriiska ama carabiga aan ku jirin inuu isticmaalo p marka wuxuu leeyahay ape ayuu leeyahay. marka kana as ayaa la yidhaahdaa waa dameer nooc kale ah. bald eagle ayaa la yidhi kan baadku waa naqaanaa fiidmeerta. marka markii asaan u dhamaysid waxaad samaynaysaa waad ku laabanaysaa iminka waxaad aadaysaa casharka labaad ayaad aadaysaa. tusaale ahaan ereyga ku dhawaaqida bida ka duwan tii hore waa bee ayuu leeyahay waa bee keliya. marka ereyga a waa ka saaran yahay meesha looma jeedo. biva insa lagu dhaqa biva ayuu ku dhawaaqayaa. b waa shinida saan u aragno kana waa shimbirkii bed qaabkaas ayaa lagu dhawaaqa. ku dhawaaqida shakhsiga hadlay waa bed ayuu leeyahay. marka haddii af Soomaali ahaan lagu dhawaaqo waa bird maaha waa bed ayuu noqonayaa. blue whale ayuu noqonaya waa nibiriga. boa waa nooc mas ah. buffalo ayuu noqonaya marka kan waa buffalo ma aha waa buffalo. a buck bull butterfly. marka waa muhiim ku dhawaaqida in aad ka daba tiraahdid ereyga uu ku dhawaaqayo macalinka ama qofka hadlaya ee gadaal jooga. marka ereygan haddii aan isla egno waa camel kana waa malay ama kalluun nooc kale ah. carp kana waa bisada ama mukulaasha. cat kana waa catfish nooc la yidhaahdo malayga ama kalluunka sida bisadoo kale ayaa la yidhahdaa. cattle waa lo'da. centipede ayaa la yidhahdaa. marka p-ga ereyga ah ku dhawaaqidiisa meesha ayaad garanaysaa centipede ayaa la yidhaahdaa. a chameleon waa xayawaanka mar walba midabkiisa bedela chameleon ayaa la yidhaahdaa. marka ereyga waa chameleon. a cheetah waa nooc shabeelkoo kale ah. chick kana waa chicken ayuu noqonayaa. marka sidaan ayaan ugu soconayna kadibna waxaanu aadaynaa appliances waa alaabaha guriga yaala ee la yidhahda appliances. marka a p ayuu noqonaya p ku dhawaaqida b ma ahan af Soomaali kan b-ga waa appliances. marka kan waa blender waxaa lagu qasaa oo lagu sameeya cabitaanada iyo waxyaalaha kala duwan. a broom waa xaaqinka Soomaalidu waxay tirahdaa scob ayay tiraahdaa. marka waa luqadda Ingiriiska kaas waa xaaqinka weyn broom ayaa la yidhahdaa. kanna waa kan can opener wuxuu kuu furayaa nooc walba oo can ereygan can waxaa la yidhaahdaa gasacadda
ay ku jirto sida yaanyada, fruitka, waxyaaba aad u fara badan. A cleaver ayaa la yidhaahdaa, waa fash nooc kale ah. Cleaver ayaa la yidhaahdaa. A clock radio waa naqaanaa, sawirkan u jeednaa. Iyo coffee maker. Coffee maker ayay ku dhawaaqaysa gabadha. Kana waa coffee pot ayay leedahay. Marka ha oran coffee pot, ha oran, lama garan karo. Waa coffee pot. P ayuu ku soconayaa. A calendar, marka ku qaldin calendar waa ka duwan yahay. Dishwasher, kan waa alaabta lagu dhaqo. Iyo ugu dambayn, a dryer, kan wuxuu noqonayaa kan dharka marka lagu dhaqo lagu sameeyo. Marka appliance waa inaad taqaana erayadan hal mar haddii aad aragtidna inay ku dhaafaan maskaxdaadu mar walba inay ku jiraan adigoo isticmaalaya sawirka iyo erayada. Dustpan, kan a fan ayaa la yidhaahdaa. Marka xasuuso ereyga ingiriiska mar walba wuxuu galaa meesha uu muhiim ku yahay ee la gelin karo. Ereygan maqalada fan ayuu noqonayaa. Marka waxaa kaloo jirta taageeraha ama tifoosaha waxaa loo yaqaan inay noqdaan fan oo kale. Marka ku qaldin, marka ereygan meeshuu galo unbuu ayaa loo isticmaali karaa. A fork, gebi ahaan r waa laga saaray meesha. There's no r, wuxuu ku leeyahay fork. A frying pan ayuu ku leeyahay. Pan ayaad leedahay. Marka pan ereygan ayaa muhiim nagu ah inaan si fiican u barno. Pan, frying pan. A grass mower waxaa loo isticmaalaa gardenska ayaa loo isticmaalaa ama wax jardiinada afka Soomaaliya lagu yiraahdo ama beerta guryaha ayaa loo isticmaalaa si dhirta loogu habeeyo. Grill waxaa lagu sameeyaa cuntada la dubo ayaa lagu sameeyaa. Hair blower wuxuu timaha markaa ay qoyan yihiin ama la dhaqo ayuu wuxuu ka dhigayaa kuwa qaleyl ah. Heater waa guryaha qabowga ama kuleelka u soo saara ayaa la yidhahdaa. Heater ayaa la yidhahdaa. Iron, marka ereygan micno badan ayuu yeelan karaa. Mar walba meeshuu soo galay ayay ku xiran tahay. Waa afeerada ama kaawada qofka si u yaqaano. A kettle waa jelmada maaragtay shaaha ama kofiga lagu kariyo. Marka appliance waa muhiim inaan baranno noociisa kala duwan. Knife waa mindi. A ladle ayaa la yidhahdaa. Ladleka waa qaado weyn oo cuntada lagu kariyo. Qaadooyinka caadiga ka weyn ladle ayaa la yidhahdaa. Marka ereygan yuu ku dhaafin. A microwave stove ayaa la yidhahdaa. Kan wuxuu ku samaynayaa cuntada ayaa lagu kuleeyaa. Microwave ayuu isticmaalaa. Waa dab ayuu leeyahay. Marka waa ka duwan yahay microwave-ka caadiga ah. Kan waa microwave caadi ah laakiin waa stove oo dab dhaliya. Mixer, a cake ama doolshaha ama waxyaalaha macmacaanka ayaa lagu qasaa. Muffin waxaa la yidhaahdaa nooc yar oo doolshada ama keega la sameeyo ayaa lagu sameeyaa. Muffinka waana aad ayuu yaryahay. Aad ayaa waxaa lagu isticmaalaa North America. Oven mitt waxaad u jeedaa waa gloves ayaa la yidhaahdaa ama gacmaha ayaa la gashtaa xilliga waxyaabaha kulul ee dabka laga soo saarayo dhanka iyo ovenka ama foornada wax lagu sameeyo. Pitcher waa jugna waa la yidhaahdaa, nooc kale ah. Marka kan waa kan biyaha lagu shubo. A plate, marka kan waa muhiim labadan erey inaan barano. Plate waa saxankii, plate maahan af Soomaali. Waa plate. Kan waa pot ayaa la yidhaahdaa oo lagu kariyo digsiga wax lagu kariyo ayaa la yidhaahdaa. Kan waanu aragnay. Ugu dambeyn waxaan arkaynaa lesson 4 kan oo ah ereygan waa muhiim. Refrigerator, laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa ereygan marka ka yimaado fridge ayaa la yidhaahdaa. laakiin isagoo full ah oo buuxa waa kan waa bariis kariye haddii la af Soomaaliya laakiin waa rice cooker qaabkaas ayaa lagu dhawaaqaa. Rolling pin waxa lagu sameeyaa pizza ayaa lagu sameeyaa, waxa lagu sameeyaa doolsho ayaa lagu sameeyaa, waa naqana waxa leedahay rolling pin. haddii dukaanaad tagto waxa leedahay I need to buy a rolling pin. qofka hore ka fahmaya. A sewing machine waa tolida kan waa mashiinka waa harqaanka wax lagu tolo aad ayaan u naqaanaa Soomaali aad ayaa lagu isticmaalaa. A sink waa meesha wajiga lagu dhaqdo ee suuliga ama musqusha. marka wuxuu leeyahay spoon waa qaadadii spoon ayuu leeyahay. Stove waa nooca dabka wax lagu kariyo ee yaala kitchenka ama jikada yaala qofka suu yaqaano. A teapot waa naqaana waa meesha shaaha lagu shubo. Teapot ayaa la yidhaahdaa. marka uma baahna xitaa in af Soomaali lagu sheego sababto ah sawirkii iyo markaad soo aragtid wixii waxay noqonayaan inaad hore ka fahantid iyo television oo sidana. marka waa sii soconaysaa. ardaygu wuxuu isticmaalayaa astronomy cilmiga xidigaha, bathroom, birds, birthdays, buildings. haddii aan idhaahdo lessonka koowaad ayaan tegayaa. waxaan u jeedaa bangiga, castle guryaha waaweyn ee waqtiyada hore la dhigay. kan sida loogu dhawaqaan dhegeysan marka a cathedral ayuu leeyahay. th ayaa soo gelay cathedral. kana chapel waa kaniisadda. kana church kan waa kan chapel oo ka weyn kaniisad nooc kale ah. kana waa kaniisad kale. marka waa guryaha
eyga dawn waa guryaha calibaysinka ayaa la yidhaahdaa halkana waxaa yaala albaabka warshadda iyo fireplace meesha dabka laga sameeyo ee guriga ku dhex yaala ee dabka laga shiday uu noqonaya marka gebi ahaan qaabkan ayaad u raacaysa halkan waxaa yaala library lighthouse mansion market mosque qaabka lagu dhawaaqo mosque ayaa lagu dhawaaqaa masaajidka museum kan waa muhiim observatory marka r waa ka baxda meesha observatory meesha xidigaha iyo cilmiga cirka laga eego ayaa la yidhahdaa pagoda palace waxay noqonaysaa dhismo aad weyn noqonayaa p ayuu noqonayaa kana planetarium waa meesha xidigaha laga eego qaabkaasi uu soconaya marka aad ayuu u fara badan yahay city haddii aan tagno halkan lesonka koowaad ama cashar koowaad wuxuu noqonayaa alley waxaa la yidhaahdaa luuqyada dheer ee guryaha gadaashooda ayaa alleys la yidhaahdaa alley ayaa la yidhahdaa kan waa ambulance waa ambulansada oo lagu qaado dadka xanuunsan art gallery sign bank bridge kan waa buundada ama kubriga wax luqadda afka carabiga lagu yidhaahdo kan waa bus kan waa gaari kan waa castle markay ku dhawaaqida castle ayaa la yidhahdaa qabka loogu dhawaaqa castle marka waxaa la doonayaa in adiga aad ku celisid ereyga markaan riixdid castle ayaad leedahay kana church ayaad leedahay oo ah kaniisadda haddii aan tago kan kale wuxuu tusayaa factory warshadii a fire truck dabdamiska a garbage truck marka garbage truck wuxuu noqonayaa gawaarida qashinqubka lagu qaado ayuu noqonayaa guri house kan waa muhiim aan isla maqalno hydrant waxaa la yidhahdaa biyaha wadooyinka dhex yaalla ee loogu talagalay hadduu dab u yimaado in aan fire trucka ka dhamaan ayaa lagu xiraa hydrant ayaa la yidhaahdaa intersection waxaa la yidhaahdaa wadooyinka laamiyada aadka u faraha badan isugu yimaadaan ay ku kala baxaan ayaa la yidhahdaa intersection kan waa lane kan waa maktab oo ah library kan waa market ama suuq wuxuu ahaadaba iminka waxaan eegaynaa kan ayaanu eegaynaa store taxi oo naqaano a traffic light a train truck van a village tuulo wall kaasoo ah derbi ah marka qaabkan ayuu u shaqaynayaa ereyga waxaad isku xidhaysaa ereyga iyo sawirka iyo qaabka lagu dhawaaqo oo ah sida ugu fudud ee luqadda ingiriiska loo baran karo sababtoo ah waa kan waa waxaa la yidhaahdo everyday english use maalin walba luqadda ingiriiska ee ku hortaalla ee ka hor imaata sababtoo ah haddii aan idhahdo camera lesson one aan tago waxaa ii soo baxaya auto camera black and white camera big marka wuxuu kaa caawinayaa haddii aad doontid noocyada kala duwan ee aad usoo iibsan kartid tusaale ahaan kan ayaa muhiima a landscape picture meel banaanka ah sawir laga qaaday oo kale marka haddii lagu yidhaahdo can you take a landscape picture ma qaadi kartaa sawir banaanka ah jawaabtaadu adiga ayaa lagaa doonaya inaad u sheegtid qofka marka waxyaalahan oo dhan waxaa la doonayaa in aad baratid marka ugu dambeyntii waxaanu eegaynaa birthday ama waqtiga dhalashada wuxuu noqonayaa tusaale ahaan xilliga dhalashada haddii aad doonaysid inaad samaysid waxaad arkaysaa halkan inay ku qoran tahay a balloon tusaale ahaan buy a balloon soo iibi haddii uu leedahay balloonka oo sidaan ah soo iibi lagu yidhaahdo si xafladda dhalashada loogu sameeyo kana birthday cake waxaa la yidhahdaa doolshaha ama macmacaanka la sameeyey ama keega loo sameeyey abaw wuxuu noqonayaa atayga la xirto ama garabaatiga luqadda talyaaniga af soomaaliyey inan wiil waa doolshihii ama keygii candle waa dabkii yaraa waa macmacaanka candiga la yidhaahdo chocolate ayuu leeyahay gabadha ay leedahay chocolate owgii halkan waa laga saaray chocolate lama dhihi karo waa chocolate waa laga saaraya kan a clown waa shakhsiga caruurta ay u sameeya waxyaabaha ay jecel yihiin ay ku cayaaraan ayaa leedahay clownka ayaa la yidhahdaa waa nooc ka mid ah cake ama doolshaha la sameeya ayaa la yidhahdaa iyo ugu dambeyntii kan oo isla meeshii ah waa gift ayaa la yidhahdaa kan gift oo la siinayo qofka hadiyadda ice cream juice lollipop ayaa la yidhahdaa kan wuxuu noqonayaa party ayaa la yidhi r waa ka baxda meesha qaabka loogu dhawaaqo laakiin waxaa muhiima in aad qoritaanka iyo aad isku qaldin sababtoo ah ereyey qaarkood laguma dhawaaqo party ayaa la yidhi kana pizza t kuma jirto laakiin ku dhawaaqida waa pizza kana popical ayuu noqonayaa waa nooc
ay cunaan ice cream ama jalaatada ay cunaan. Sparkler kana carruurta ayaa ku cayaara. Toys waa qayb ka mid a waxyaalaha carruurta ay ku cayaaraan, iyo sanadka ayuu noqonayaa. Marka muhiimaddu waxay tahay ardayga inuu yidhaahdo waxaan isu keeni karaa ereyada, sawirka iyo codka ayaan isu keeni karaa. Saa awgeeda hal mar haddii aad baratid iloobi maysid. Waxaad leedahay ereygaas meesha ayaan ku arkay, wax isbeddel ah ba yaraatee ma jirto, waa isla isticmaalaysaa. Qaabkaas ayuu u shaqaynayaa. marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh ee aan ku baranay erey bixinta naxwaha luqadda ingiriiska iyadoo la isticmaalayo sawir, kaasoo ah learn English grammar vocabulary through pictures. wuxuu ahaa sawir iyo cod ayuu ahaa. wixii macluumaad ee casharkan iyo casharada kale mar walba info@sologroups.com. anigoo macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.